بسم الله الرحمن الرحيم وأكون مع سنتها سؤال ويديسي استاهل عبد الله وجبر كل لطي سوماليا كو بربارتي كو خانجارتي وحكو برتي هذا كلا وحنا هاي أنيجا قف كبده كله جسوا برتي أو هير سركسو جاري هير إلى خرنك عن صومري أو خرنك وجودن بي كوني سجع بق سجعشن كي صار راعي استاهل واقف فرفران استاهل واقف فرحات بدن استاهل واقف دad جعل استاهل وادad qof wadankeedii jecel استاهل واقف maaragtay dadaasho dadka wax u sheegto maxaa la dhahaye hooyo ah guursatay saddex caruur leh laba gabdhood iyo wiil dhibaatadii dagaalkii nagu soo dhacay daraadeed nolosheeda ilaahay wuxuu keenay inaan wadankan Holland aan ku noolaado ilaa ay hadda aan deganahay maxaa la dhahaye aan wax ku bartay ilaa ay haddana maaragtay aan nolosheeda aan ku qaato gudniin aniga haddaan nafsadeyda ka hadlo dhibaato badan aan ka soo maray maxaa la dhahaye siiba haddaan ahay gabar 6 jir ah waqtigii la guday marka maxaa la dhahaye oo aad tahay xataa kaba soo qaad waxaad leedahay gabdha ka waaweyn oo la guday laakiin waxna lagu sheegaynin aadan ogeyn waxa kugu dhacayo yani wax aad waliga maqasha aan ahayn waxa kaleeto oo keentay dhibaatadaas aytana waxa waaye waana la ku soo koriyay wadankeeni normal ay noo ahayd qof waana la ku soo barbaariyay gabar hadda tahay waa in lagu gudo nolosheena ay ahayd saasa lagu leeyahay jidka adoo mareys adoo ilmaha la ciyaaraysid aan lagu leeyahay goorma lagu gudaaya marka taasna kulay waxa keentay maadaama hadda aan ogahay aqoon la'aantiina soo haysatay iyo waxaan loo sheegi jiray labadii loo isku darayba taas daraadeed maxaa la dhahayay teeda kale waxa kaaga sii daran gudniinta maalinta gudniinta marka imaato waxay tahay maalin aan lagu sheegaynin waaridkaagii ay tashteen adigii lagu wadaayo adigii meel aan ogeyn lagu geynayo oo maaragtay sidii qof meel lagaaga dhigayo maaragtay meel wax fiican oo maaragtay dhibaato ahayn adigoo faraxsan ninac lagu siinayo dhar cusub lagu siinayo adoo faraxsan aad hal mar waxaad arkaysaa wax kugu dhacay hal mar waxaad arkaysaa bal hadda ka fiirsada waxaad bal ogaaw qof waxaad tahay 6 jir ah ilma tahay aqli ma leed يا لحجرة أو مركز سيتو لو بلابا يجودنين رنتي إن شاء الله عمل يقول هذا وحن آمن سنة هاي المها محسوستان وح محسوسان كران أنا تاس خلدا واركا المها وح حسوسان كران وأنا أوجا هاي وحي وداعي سبتها أوجا إنما حيت هاي ماشي اللي جاي sidii la ii waday dadkii sida oo akaayeen sidii la ii guday jidka waxa dhan aan maray aan saas uga sheegi kara marka aan idin bilaabo guriga hooyaday way waday Allah u naxariisto qolana la geey guri dariskeena ah bas markii la geeyay meeshan gogol taalo dhulka anigii saaka hadda li soo siiyay qurux badan aan wata waxa ogaay male ilma ahay sidii loo joogay hooyaday iyo islaan kale gacmaha iga qabteen waxa lagu fariisiyay gogashi ilaa ay hadda wax aan ka ogaay ma jirto wax dhacay sidii loo joogay kastuumadeeda hore laga siibay diraceyga koraa loo qaaday islaan hortayda fadhiso oo sakiin ku wadato sakiin si fiican u maqal sakiin wadato ay soo hor fariisi anigoo yar waa arkaysa caato ah labeeda logood saas igu jiiday hoosta iga soo gashay yaa aan maxaa la dhahay anigii marka waxa wax kale aan sameyn karo maxay tahay aan ahayn qaylo waa qaylina
وخيلنا خيلو هذا سنكوايا maxay sameeyeen dadkan qayladaas dhibtay waxay soo qaateen maro ay isku soo duuduubeen ay afka ii galiyeen maradii markii afka la ii galiyay garab gacmihiina leega haayo lugihiina saas iiga furan yihiin naagtaan ha imaata xataa kuma dhahayso aniga hebelan ahay xataa kuma dhahayso laguma salaamayo ay islaantan maxaa la dhahayay ay hilibkayga goysay kabacdi waxaa jirto kabaabyo wax la isku duro maaragtay xanuunka ka celinaysa jirto xataa taas ma haysan ya waa la tolay xanuunkaasan oo adkaysanay qaqdaasan ku haya qof maaragtay sidii aan ilaahay ugu waxay dareemayso markaasayto bas markii la tolay waa la istaajiyay labadii lugooda la isku dhajiyay labada lugood markii la isku dhajiyay waxa la soo qabtaa xarig markii la soo qabtaa waxa leega bilaabay xudunta meesha ka bilaabato xarigii la igu duuduubo ilaa jilbaha korkooda bas waxa la galiyay saakadaydii waa la waday gurigan deganeenaan la geeyay gurigan deganaa markaan la geeyay maalna laba maalmood miya ma ogi inaan kaadiyaan raba ma kaadin karo calooshii maaragtay waa ifuurtay ma kaadin karo waa cabsi xataa ma weydiin karo waaridkay waa cabsaday markaasaan dhahay ma kaadin karo see ku dhex kartaa ma kaadin kartid ma kaadin karo kaadi xataa waa inaan sii daayaan rabaa ما soo baxaysa bas dadkan aqligooda ilaahay wuxuu siiyay waa aragteen maxaa la mudacyada darinta lagu talo mudac adab la gali bal fiir anaga waxbarashadana fiir inta marayso adab la gali oo jeeda soo gaduud ah ya alla yiri hadana wixii lagu helay labadii saas loo furay ajirkaygii lagu furay kaadi saas u timid daawadana maxay tahay godaana loo qoday sax ya ma ogi waxa lagu soo unsi iyo ma ogi dadkan iyo sabiib iyo waxa ay sheegi jireen waaga hore malmal iyo wakaas lagu soo markaasa bal hada fiiri jir meesha nabar meesha lagu qalajina godkaas fariis lagu leeyahay xanuunka ku hayo waxa u malaysa ina gubanaysid waa lagu haynaa qof maanta ku weydiinaysa ma jirto seetahay jeedada waxay ka wadaan inay meesha qalasho ha hatta ku dhaysa ma jirto ilaahay amarkiis alxamdulillah shukr waa raystay waa ka badbaaday waa la soo waday reer muqdisho nahay muqdisho xamar la keenay فرح قفل بالله فرحاي ولا فرحسي الله خير الله قالوا ساقودي قبر في عن الله هل قف وسؤال ويدين كرم هل قف او يجي جواب كرم هل قف وحي شيء كرم مجرت aniga horta runtii sababaha la ii sheegay waxay tahay waa diinteena quraanka ku taala maxal dhahayay sababaha kale oo maqla waxay tahay maanta hadaan lagu gudin laguma guursanayo sababaha kale waxay tahay wasakh qof wasakh tahay on daahir ahayn ilaahay abuurtay aniga ilaahay isaan abuurtay ya maanta haday dadku dhaan wasakh tahay dadkii dhan aaminsan yihiin waa raaxisa waa qaadanaysa waxa isku malaysaa inaad tahay wasakh waxa isku malaysaa maarta qof inuu ku baahnay marka waa wax macna aqli galaayo oo qaadanaysid oo naloo soo sheegi jiray laakiin
maadaama aan aniga wadankii ka soo tagay oon wadan kale hadda imaadan ku noolahay aan arintan gadaal igu soo noqotay aan fahmay inaysan ahayn oo diin ahayn oo aysan maaragtay nin guursigan iyo waxaan dadka loo sheegay ay run ahayn aan soo ogaanay horta waa ciishoone hadda qof weyn aad tahay moogta ciila ku qabanayo ciil markuu ku qabanayo waxaad dareemaysaa waayahay waalidkaygaan raba inaan weydiisto waalidkii dhibaatay soo mareen waa og tahay qof weyn aad tahay qof aqli galaanahay ilaa aqli isii waxaan dhahay maanta marka waalidkay wax maaragtay aysan yani barasho ahaanta waxbarashadooda waa yareed Soomaali maxay ku maamaada aqoon la'aan waa iftiin la'aan iftiinkoodu wuu yaray marka waxaan is dhahay waalidka waxa ha weydiisan ya wixii dhacwa dhaceen laakiin hadda waa og tahay waxaad soo martaa og tahay taas kaliya ma ahane caadada markay ugu dhacdo xanuun aan la dhacaya kaniyaashaas ku wada maxaa la dhahayaa guurso nin adii ninkaagi qayladaas ku jiraysa run maal raamasa been qayla ku jiraysa aniga horta waa aaminsanahay waana runtii maaragtay maanta hadda aniga Soomaaliya intaas kula soo ekaan lahaayoon ilmo ku dhali lahay Soomaaliya maxaa la dhahay ay sheekadan ay saan tahay aniga saasan sameyn lahay formal ramasabeen laakiin waxa waaye hadda waxa waaye jawigi waa leega soo waday si kala hadda wax u arkay si kala hadda wax u bartay marka hooyaday aabe Allah u naxariisto waxay rabeen wixii aniga ii fiican oo mustaqbalkayga hadhow u fiican waa dareemi karaa laakiin hadda waqti waagaas waxaan ka hadlayaa 1970 aan ka hadlayaa hadda waxaa la marayaa 2012 la marayaa adduunku waa isbedelay ya adduunka haduu isbedelay aqoon ay meel walba taalo aqoonta waa la soo qaataa waxaan hadda dareensanahay maalin walba qofka bani'aadamka inuu maalin walba wax cusub baranayo marka waxbaan baranay waxbarashada hala haysla qaato ma ahan maaragtay wax maanta la dhaho in la gudo waay qof dhaqanka waa wuuna isbedelay ani waa ogahay sababtoo waa dareemaya dad dhahay ma dadka hadlaay waa ka hadlayna kama hadli jirin anaga marka taas waa isbedeshay dadka xataa waxa jira waa dad carari jira hadda xataa tiraad gudniin ka cararay marka dadkii waa isbedeleen hadda waa la isku imaadaa waa laga sheekaystaa laakiin wali waxaan noo baahan yahay maaragtay yani siiba ahaanta dawladeena waxa loo baahan yahay inay arintan jadwalka ugu jirto aniga wallahi horta waxaan aaminsanahay qof haduu maanta dhaho waxbaan ka hadlayaa waa dareemayaa dad badan inay jiraan ay hore ka xanaaqayaan horta waa runtii isweydii maxaa keenay xanaaqa waxa aan aniga dhahay oo ka xanaajinay maxay tahay ii sheeg kullee waxaan sheegay waxba ka jiro hadii kale kama xanaaqi kartid aan isleeyahay ani saas oo fikiraa moogta marka maxaa dhahay anaga waxaa naga maqan runtii wax la isku sheego waa naga maqanta dhibaatay noo tahay yani sana waageenii hore ma haysanin dad maaragtay oo aan maanta aan ku dayanayno oo wax sheegay meel soo fariisanayo waxyaabo badan runtii naga maqan marka waa jeclaan lahayn in qof haduu maanta wax ka hadlayo dhageyso qofkaanayta fikradiisa waay adna fikrada leedahay ana fikradaan leeyahay isii waqti aan fikradeyda ku dhiibto waa dhici kartaa ina igu raacid waa dhici kartaa inaad igu raacin waa okay nolosha saas waay dadku maaragtay isku hal dhinac isku ma raacaan aniga horta Georges
waxaan dareemsanahay inay dhacayso waa aaminsanahay sababtoo ah waxaanayto waa u jeednaa inay runtii maaragtay dhibaato ahaan haddaan u fiirino dhibaato le keliya naga soo gaartay faa'iido nagama soo gaarin haddaan reer Soomaali nahay oo maaragtay faa'iidana waa ognahay dad ganacsi iyo nahay oo maaragtay faa'iido inay muhiim tahay waa ognahay kaba soo qaad for example ahaan ganacsi ya marka waa khasaaro gudniin waxa aniga u arkaa khasaaro soo martay sababtoo ah maxay tahay khasaaro haddaan ku faahfaahiyo waxay tahay xanuunkaasayto oon joogsanaynin ilaa iyo hadda xataa waxaa jiro haween حتى دقة لحدن كحتى ضعفي يا أو دبعتها يستو بل كور إسكدا يمحل ده يمركي ماركتي هوين ك ينين كده إسكو تجايان دبعتها يستو مركي ده لا يسو دبعتها يستو مر والبا دبعتها يستو بل وايه هي فائدة ده وجدنين كلية هاي وحان ربا إلا إيش يجو qofka bini aadanka oo maanta isoo har fariisan karo oo dhigi karo faa'iidadaas leedahay wallahi waan jeclaa inaan hor fariisto oo ii sheego sababtoo ah hal faa'iido ma jirto waa eber faa'iido waa eber khasaaran ilaahay intee la egta marka haddaad waxba ka ogeyn soo uga hadli kartaa aniga dareemayo ma ogaan kartid marka qofka haduu sheeganayo aniga saana dareemayo qofka haduu dhahayo waa in la dhageysto haweena ayaga waxay dareemayaan waxay ma dhibaatada haysato haday haweena ka hadasho dhibaatadeeda sababta maxay taa loo diiday sababta loo leeyahay aniga waxaan dhahay jirkaan aniga Ilaahay siiyay ma siinin Ilaahay oo siiyay aniga ya waa dhigi kara maanta mar raba xataa qof walba si mar raba inaan guursado haye بس إلى هاي أجر كايسيستي اللي جرجر مرة إلى هاي ساسي أبورتي إيدا سيد إلى هاي أبورتي هورت وحواي أدون كورت وايجو هور أوجاو جودين كابو سعودي haddana ka bacda adduunku waa isbedelay waa laga hadlayaa dad joojinayo kaba soo qaad Suudaan waa aragtay waxa sameysay meesha iska baday waa naga sii daranto xataa haweenka markii ay dhalaan ka bacda la sii tula marka ani maanta wallahi waxa aaminsanahay haddii dawladda Soomaaliya meel kasta ay joogto ay maaragtay jadwal ku darsadaan oo dhahan waa ka hadlaynaa oo haday rabaan inay international la garto wadan la garto la yaqaan ay noqdaan waa inay maaragtay waxay United Nations ka dhaxday ay qaataan muu maleynay 2030 inay joogsanayso laakiin waa aaminsanahay inay joogsanayso niidayda qalbigaygu wuu ku furan yahay intaan noolahay inaan dad u sheegi doono qof kasto iga hor yimaadaan dhihi karo aan dadaalayo aan wax ka sameeynayo dad badan jiro marka maxaa la dhahaye waa jeclaan lahay dadku inoo bataan dadkana wax isku sheegaan marka haddana waxaan ka wadaa wax isku sheegida waxaan ka wadaa bal hadal haddii maanta lagu keeno walaalayaalow intaadan isdhayn waa run ka fiirso wuxuu uu yahay hadalka maanta lagu keenay ka fiirso sababtoo ah waa la yiri waxa la yiri waa laga tagay waxa la yiri war ma noqonayo adiga soo ogaaw ani ima taqaanid ani adiga kuma aqaani adiga warkaaga keenso maxaa ku run ah maxaa ku been ah kii maanta aan asagoon war si fiican oo information fiican aan u haysanin haduu maanta ilmo yar gudo xaqaas adigu saaran yooga ilmahaanayto qaangaar maaha adaa mas'uulka ah adiga waa qofka maaragtay ilmahaaga saas jidkaas u wadid ogaaw laba gabdhood aan dhalay ma gudin
horta waa ku faraxsanahay inaan maaragtay hadda ku noolahay wadan dhahayo ma samayn kartiin maaragtay waa wada ogyihiin waa la wada ogyahay waana dareemaa dad inay dhahaan ay weli ku jirto weli waxa ku jirta dadka waxaan naloo sheegayo ma weli waa run weli dadka waxa ku jirto sidii hooyada Allah u naxariistay maanta gabadhayda haddii aanan gudin berito lama guursanayo weli waxaa dadka ku jiro waa leecayna beri waa leecayna waxaa leeyahay adiga waay adaa mas'uulka ah adaa xumaysa adaa gabadhaada waxaa la aaminsan yahay gabar haddaan la gudin xataa xataa inay bikra ahayn laakiin ogaada reer Soomaaliyay bikro bal horta raadso information soo raadso waxay tahay soo ogaa waxay tahay ya marka waa dareemayaa ina abti ina eedo ayeeyo habaryar eedo qof walba inuu maanta uu ku leeyahay maarta dadkii ilaa isku mid maahane dad ka soo horjeeday waa dareemayaa laakiin yaa way mas'uulka yaa qaaday hooyo abbas waa ya ina adeer awoowe habaryar abti ehel waa ka dheer yihiin ya adiga waay ana waa dareemayaa inaad maaragtay marmar waa jirtaa qofka inuusan oo ma aha qof aad u adag ahayn waa dareemayaa oo maanta dhan hadal lagu shubay maya waa inaad samaysid maya adee mas'uulka ah adaa lagu qabsana bari markaa dhimatid adaa lagu qabsana waa jecelahay dadkaanayto Soomaalida inay maaragtay ay dhahaan sababta okay qofku uu ku imaan karo ku sheegi kara gudniinka haye ii fasir leh ii soo caday meesha ay ku taalo inaan gudo ii soo sheeg leh raadso adiga information kaaga raadso adiga warkaaga ha iska raaxin ha iska qaadanin dada been ku sheegay marka waa jecelahay maanta inay maar dadka runtii siiba maxaa dhahay information badan adduunka hadda ka jira adduunku waa isbedel informationka aad u ordooya hadda maaragtay social medianka la sheegayo maaragtay taleefanadan la wato iyo filmadan la duubayo iyo waxay u socdaan si dhaqso ah ma ahan 70 waxba haysanay 80 ma aha marka waa ognahay isku sheega yaa la xishoon yaa la kala cabsanin dhibaato haday jirto Soomaaliya waa inaas garab galno ma runta isku sheegno waqtigii beenta isku sheega waa laga tagay runta waa fiicanta